kulanti wacan daawadaalkuna soo dhawaada wararka caawa warbaahinta ogaal qodobada wararkeena aanu ku soo qaadan doono warka caawana waxa ugu waaweyn taliyihii nisa ee gobolka Gedo oo gabi ahaantiisba xilka laga qaaday sida aan xogta ku helino Iran waxaa lagula taliyay inaysan iska khasaarin fursad weyn oo hortaala sida ay sheegtay warbaahinta dalkaasi ee Iran. warbaahinta Kenya waxa ay warar dhaadheer ka qortay heshiiska Soomaaliya iyo Kenya iyo waliba kulanka ka dhacay dalka Djibouti ee looga hadlayay arrimaha Soomaaliya iyo waliba guud ahaanba shirka IGAD. shacabka Mandheerana waxa ay dalbadeen in magaalada laga saaro ciidamada uu hogaaminayo Cabdirashiid Janan iyo waliba wararkii ugu dambeeyay heshiisyada hordhaca ay gaarayaan xiriirka ay yeelanayaan dalalka Israa'iil iyo waliba Morocco ayaa qaybaha dambe ee barnaamijkeena dabcan ku falanqeyn doona wararkii ugu dambeeyay guud ee caalamkana waa ay ka qayb noqon doonaan wararka caawa ee warbaahinta ogaal. haddii aad ka mid tahay saaxiibada barnaamijyadeena ku cusub fadlan la sii wadaag asxaabtaada kale si ay uga mid noqdaan asxaabteena ogana war helaan wararkii weli warbixinada ugu dambeeyay Soomaaliya caaliga bartan ee ogaal media. haddii aanu ku bilowno faahfaahinta daawadayaal wararkaasi ee warbaahinta Kenya ayaa waxa ay qortay in Soomaaliya ay gabi ahaanteedba ku fashilmatay isku daygii ahaa in Kenya lagu canaanto shirki goboleedkii IGAD ee ka dhacay dalka Djibouti. hormurtiyeed ka soo baxay shirka goboleedka IGAD laguna xusay wax ku saabsan ashkatada Soomaaliya ay ka gudbisay dowladda Kenya ee ahayd in ay faragelin ku hayso midnimada iyo waliba madax banaanida Soomaaliya. dowladaha ku shiray magaalada Djibouti maalintii shalay iyo doraad ayaa waxa ay weydiisteen Soomaaliya inaysan diiradda saarto jadwalka doorashooyinka iyo waliba sidoo kale barnaamijyada dib u heshiisiinta iyo amniga dalka ee gudaha. Soomaaliya ayaana dalbatay in koox madax bannaan oo ka socota IGAD loo diro xadka ay wadaagaan labada dal halkaas oo Soomaaliya ku eedeysay in Kenya ay gacan siiso jabhad inkastoo eedeyntaasi ay Nairobi beenisay. wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq ayaana sheegay in hogaamiyaasha IGAD ay ku cadaadiyeen Soomaaliya in lagu xaliyo arrinta Kenya wadahadal iyo waliba isafgarad. wasiirku wuxuuna sheegay tallaabada ugu horeysa inay noqon doonto buu yidhi xasilinta xaaladda iyo waliba xiisadda labada dal isla markaasna dib loo soo celiyay xiriirkii diblomaasiyadeed ee labada dowladood taasi oo dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya horey ay u jartay. isla wararkaas ayaanu ku jirnay wararka ka imaanaya dalka Kenya ayaa sheegay in qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Mandheere waqooyi bari Kenya ee maamulka dowladda dhexe ee Kenya u gudbisay cabasho ku aadan ciidamo ay sheegeen in ay saldhigyo ka sameysteen beere ay leeyihiin dad shacab oo ku yaala duleedka magaaladaasi Mandheera. sidoo kalena golaha muslimiinta ee Kenya ee loo soo gaabiyay magacooda Subkem laanteeda magaalada Mandheera ee gobolka waqooyi bari ee Kenya ayaa sidoo kale cabasho u gudbisay dowladda dalkaasi oo ka dhan ah wasiirka amniga Jubbaland ee Cabdirashiid Janan. gudoomiyaha golahani ee Mandheera Cabdulmajiid Khaliif Maxamed ayaa sheegay in muddo 48 saacadood gudahood ay doonayaan in Cabdirashiid Janan uga baxo gudaha magaaladaasi. shacabkan oo isugu jira cuqaal culimo iyo haweenka magaalada ayaa saaka cabashadooda hordhigay mas'uuliyiinta dowladda dhexe wakiilka ugu ah deegaanka Mandheera waxayna ka codsadeen in 48 saac gudahood laga saaro ciidamada uu wado wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan oo ay sheegeen in uu degan yahay magaalada duleedkeeda. eedemaan hore ay sidoo kale u jiraan iyadoona shacabka Mandheera ku eedeynaya ciidamo uu wato Cabdirashiid Janan inay qalqal amni ah ka abuurayaan gudaha magaaladaasi ee Mandheera. isla wararka gobolka ayaanu ku jirnaa kadib khilaaf in muddo ka dhex jiray taliyaha nabad sugidda gobolka Gedo Bakaal Koke iyo gudoomiyaha gobolkaas Cusmaan Nuur Xaaji ayaa ugu dambeyntii xal laga gaaray waxaana labadoodaba looga yeeray Muqdisho iyagoo la kulmay saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya mid walbana cabashadiisa la dhageystay. saacado ka hor ayaa xilka laga qaaday Bakaal Koke iyadoona maanta uu xilka ku wareejiyay taliyaha bedelaya isagoo lagu magacaabo Cali Xaashi. munaasabadda xil wareejinta ayaana ka dhacday Doolow oo xubno ka tirsan dowladda Soomaaliya ay ka qayb galeen. Gedo ayaa arrimaha la isku hayay waxaa qayb ah maamulka degmooyinka oo Cusmaan Macalimo gudoomiyaha gobolka shakhsiyaad saaxiibo la uu ku safay. deegaanada daawo ee Gedo waxaa ka socda dhaqdhaqaaqyo ciidan xilli Janan iyo ciidankiisa iyaguna qorsheynayaan inay dib u qabsadaan deegaanada bisha Maars sanadkan laga saaray deegaanadaasi. waxaana wararku ay sheegayaan sidoo kale in caawo laga dareemayo cabsi dhinaca ciidamada iyo dhaqdhaqaaqyo ahna laga dareemayo duleedka degmada Baladxaawo halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamo badan oo ay dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya ku daabuleysay labadii maalmood ee la soo dhaafay. iyadoo Israa'iil ay isku dayeysay inay xiriir
la yeelato dalalka muslimiinta ee ku yaala bariga dhexe ayaa waxaa wararka aan helayno ay sheegayaan in diyaaradii ugu horeysay duulimaadkii ugu horeeyey oo Israa'iil ah uu ka dego dalka Morocco, halkaas oo la qorsheynayo sidoo kale in labada dal ay heshiis ku kala seexdaan. heshiiskan uu garwadeyn ka yahay dalalka Mareykanka ayaa la sheegaya in wafdigii ugu horeeyey oo Israa'iiliyiin inay gaareen Morocco maanta si ay ula kulmaan baa yiri boqorka dalkaasi, sidoo kalena laga wada hadlo xiriirka labada dhinac iyo sidoo kale arrimaha dibadda, iyadoona madaxweyne Donald Trump uu arintani garwadeen xoogan uu ka yahay. sida aynu helnay waxaa hogaaminayo shirkani ninka dhanka amniga u qaabilsan la talinta dhanka amniga dalka Israa'iil oo lagu magacaabo Merit Ben Shabbat. ninkan ayaana la sheegaya isaga iyo kolonyo la socotaba inay ka degeen dalkaasi Morocco galabta oo Talaado ah. sida ay la sheegayeen diyaaradan oo lagu magacaabo Al-Israelian Airlines ayaa waxa ay sameysay duulimaadkeedii ugu horeeyay iyadoona ka duushay Tel Aviv kuna degtay magaalada Rabat ee dalkaasi Morocco, iyadoo ay la hadlayaan warbaahinta isla markaasna ka hadlayaan garoonka dalka Israa'iil ka hor inta uusan ka duulin wafdigan ayaa waxay sheegeen in uu socdaalkooda la xiriiro sidii ay u soo heli lahaayeen dal muhiim u ah bay yiraahdeen bariga, isla markaasna xiriirka ay la yeelanayaan uu noqon doono mid buu yiri wax badan ka bedeli doono arrimaha khalqalka dhanka siyaasadda ee gobolka. wuxuu dhahay waxaanu rajaynaynaa inaan maanta u duulno dalka Mareykanka, waxay tani abuuri doontaa buu yiri xulafo weysi weyn. Israa'iil iyo Morocco ayuuna yiri waxay noqon doonaa laba dhinac oo waxyaabo badan iska kaashada, iyadoo arrintan ay noqon doonto buu yiri mid gobolka saameyn xoogan ku yeelan doonto. Morocco ayaana noqotay wadankii saddexaad oo Carab ah sanadkan gudihiisa oo xiriir la yeelata dalka Israa'iil. waxaa iyada ka horeeyay dalalka Imaaraadka Carabta iyo Bahrain, iyagoona sidoo kale arintani la sheegay in ilaa hadda Sacuudi Carabiya isagana laga yaabo in uu ka mid noqdo dalalka sida tooska xiriirka ula yeesho dalkaasi Israa'iil. ugu dambeyn daawadayaal dalalka isku dayaya inuu sii jiro baa jira heshiiskii 2015 laga gaaray barnaamijka nukliyeerka Iran ayaa Isniinta isku raacay inay wax ka qabtaan baa jiray suurtagalnimada in Mareykanka lagu soo celiyo heshiiskaasi marka Joe Biden uu la wareego xilka madaxweynaha dalka Mareykanka. wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka ayaa kula taliyay Iran inaysan iska khasaarinin fursadan oo uu yeeray tii ugu dambeysay ay helaan inay tahay dalalka xubnaha ka heshiiskan ayaa markii ugu horeeyay muddo sanad ah waxay shalay ku kulmeen qaab online xilli heshiiskan uu ku jiro wax uu wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka Heiko Maas uu yeeray marxalada hoobad ah, taasi oo ka dhalatay cadaadis xoogan oo Mareykanka uu saaray Iran iyo weliba xadgudubyada Tehran ay ku sameynayso baa la yiri heshiiskaasi. dalalkan oo kale ah Jarmalka, Faransiiska, Britain, China iyo Ruushka ayaa isku dayay in heshiiskan laga badbaadiyo inuu burburo kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu si iskiisa uga baxay sanadkii 2018. saddexda dal ee reer Yurub ee heshiiskan ku jira ayaa rajo ka muujiyay isbedelka maamul ee Washington uu Mareykanka dib ugu soo celin karo heshiiskaasi. madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden ayaana hore u sheegay inuu rajeynayo in Mareykanka uu ku soo laabto heshiiska oo la gaaray intii uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ee dalkaasi oo madaxweynaha ka ahaa Barack Obama. intaas ayaan ku soo gabagabeynaa warka caawa ee warbaahinta ogaal. dabcan daawadayaal haddii aad wararkeena iyo warbixinada ka heshan waxaan si xushmad leh kaaga codsanaynaa inaad wararkan iyo warbixinadana la sii wadaagto saaxiibadaada kale adigoo dhigi kara baraha bulshada. tan iyo kulanti dambe waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. haweenimo wanaagsan.